حوجا سيبي أفوجين أنت هاي سجنة أنا كذا بحنا واساس يو شيء كله أيام ربي إنام جريو هي أو إنه أصبر نقوله ددوينه واساسه وحوي نين مصرية أو شركة ليلى هذا الفتحي أيوه هيستي هي إيجيبتي هي نمر ريها الجيسان أو شركة مقعد ليلى هون أن جالف جالف أن هون أن جالف أيا waxay ka soo deeysadeen badeecadaas waxay gaaraysaa 25,000 oo dollarka Mareykanka dabeetana ninkiiba isugu dhufteen lacagtii bay ka cuneen alaabtii badeecadii ayaa la siin waayay dabeetana wadankii Hargeysa u tagay Hargeysa markuu tagay ayuu nimankii u tagay wuxuu waxaad yeesan lacagtii siiya waxay yiraahdeen $4,000 alaabtu wixii wana kiibsan waayay adigu $4,000 ma si anaga hawsha dhamaan ninkaas maxkamaduhu tagay maxkamadihii waraaqihiisi way ka daba shaqeeyeen hoosta dhigan wasiirka arrimaha gudaha u tagay isagii u tagay waxa ku yiraahdeen adeer wasiir arrimaha gudaha iyo mid kale oo arrimaha midna ku qoonay waxa la xiriiray nin immigration ka qaabilsan ayaan la xiriirnay bay yiraahdeen si lagu musaafiriyaba marka ninkii aad u qayliyo ooyay oo runtii aan aad uga xumaaday oo leh war shuyuukhda dadka masaajidada hogaaminayo dadka wax garadkow dawladda Muuse Biixi war halay heeliyo oo xaq halaygu heeliyo oo nimanka daalimiinta ay dhacaya ee dulmiga halayga qabto afka Carabiga ay ku hadlayaan laakiin tarjumaadiisu waa inta imika aan sheegay wuxuu sheegay in laga dhacay $25,000 oo shirkadda reer Hargeysa ay ka dhaceen lacagtii uu ka soo saari lahayd meelo badan oo marmaray wasiirka arrimaha gudaha ka mid yahay waxba loo qaban waayo waxaan leenahay dawladda Soomaaliland ninka odayga loo gargaar Arabka miskiinka ajnabiga loogu faanayo dalkaagii ma joogtid dalkaygii ba joogtaa dulmigaasi wuxuu keenayaa in cuqubadu ay ku dhacdo ummadeena iyo dadkeena marka dulmigu qof buu ka bilaabmaa ninka odayga hawshiisa hal loo kaco wuxuu xaq u leeyahay hal siiyo magaciisa iyo meesha uu ka yimid isaga noo sharaxay الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سيادة الرئيس المحترم رئيس دولة صوماليلاند أناشدك سيادة الرئيس موسى بيحي عبدي أنا ارفع عني الظلم من هؤلاء الظالمين إنهم أخذوا بضاعتي وأخذوا مالي ولا يريدون أن يردوه إلي. جميع المحاولات باءت معهم بكل الفشل. شتموني سبوني ضربوني هددوني بالقتل يعتمدون على ناس في الخارجية شركائهم اسمه فهمي يهددوني به. انقذني أنا والله العظيم في مصيبة. أخذوا مالي ولا يريدون أن يردوه إلي. شركة القرن والخليج واساسه